السلام عليكم صاحب يال سود هذا مقال كان كوبان waxaan rabaa inaan kaga hadlo falanqeyn aan ku sameeynayo kulamada todobaadkan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League laga ciyaarayo todobaadkan kulamo dhowr ah laga ciyaarayo horyaalka Premier League waxaan dul istaagayaa kulamada sida weyn isha lagu heen doono Everton todobaadkan iyo Liverpool waa kulan weyn Anfield kulanka ka dhacaya Liverpool xiliyaareedkan waa laga yaaban yahay marka loo eego kulamada ugu dambeeyay guulo ciriiri ah ayay soo gaareysay afartii kulan Premier League ay ciyaartana way soo adkaatay kulankii Champions League ay ka ciyaartana xilli dambe fagatay haddaba todobaadkan Everton ay hayaan Derby Merseyside kulankan waa kulan si weyn isha lagu hayo labadan kooxoodna xifaalta weyn oo wali ah ayaa ka dhaxeeya haddaba xiliyaareedkii hore labada kulan saarkeen labadan kooxood Liverpool afar dhibcood ay ka qaadatay naadiga Everton haddaba Liverpool masiibada doonta kuulaheeda waa su'aal is weydiinayo oo dhamaan taageerayaasha mucaaradka iyo kuwa Liverpool taageeraba ay is weydiinayaan haddaba Liverpool markii loo eego marka Everton xoog ay si fiican ay xoogaa waxaad moodaa inay ka awood badan tahay marka kulankan xilliga qadada 8 saac ay baro soo galaya sabtida maanta ah haddaba Liverpool waxa isleeyahay ahaan markii aan saadaal ka bixiyo waxay ku adkaanaysaa 2 gool waa si saweynaya sababta Liverpool saan la socon saaxiibayaal difaaceedu aad uma adka sidoo kalena kooxda kubadda cagta Liverpool weerarkeeda aad u xooggan yahay marka waxa isleeyahay Liverpool shabaqeeda waa la gaarayaa Everton ciyaartoy waaweyn ay haystaan Jack Grealish ayaa halkaas ku wacdareynaya oo caawin cajiib ah iyo bandhig cajiib ah la soo baxay markii uu ka tagay Manchester City marka al-umum Liverpool iyo Everton kulankooda todobaadkan wuxuu ku dhamaanayaa saaxiibayaal 2 gool oo Liverpool ku adkaan doonto Isaaq waa ciyaaraya laakiin ani ahaan waxa isleeyahay Isaaq ugu dambeyn kulankiisa ugu horeeyay ayraadee kulankiisa ugu horeeyay Premier League sababtoo ah wali muusan ciyaarin Premier League marka kulankiisa ugu horeeyay Premier League shabaqa ayuu gaari karaa oo Liverpool uu ciyaaro marka 2 gool ayaan Liverpool ku adkaanaysaa ciyaarta kale ee sida weyn loo wada sugayeen todobaadkan waa kulanka dhexmaraya Chelsea iyo Manchester United kulankan inta badan saaxiibadu way ka warqabaan bareejihiisa badan kuligiisu aad u yar tahay Old Trafford oo ka dhaca Manchester xiliyaareedkan bandhig dhiita ay ku jirta Robin Amorim mustaqbalkiisa shaki weyn la gelinayaa United kulanka ugu dambeeyay 3 waxba waxa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City kulankii Derby Manchester iyadoo todobaadyadii ugu dambeeyay natiijadeedu ay aad u liidatay marka United afar kulan ay ciyaartay afar dhibcood ayay wadataa taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta Manchester United laba kulan laga adkaaday laba kulan ay badkaatay kulan barbara ay soo gashay marka Chelsea ay hayaan oo iyaduna wax saas ka fiicnaan marka loo eego kulanka ugu dambeeyay Brentford Brazil soo gashay Champions League 3 gool feeral laga soo galiyay Bayern aadeen marka Enzo Maresca iyo Chelsea laftigooda xoogaa Manchester aad kaga fiicnaan laakiin xoogaa waa ay ka wada rooyihiin marka kulankooda ugu dambeeyay labada kulan ugu dambeeyana Premier League labadan kooxood saan la socono Chelsea ayaa 4 dhibcood qaadatay oo United ku kulan barbara la gashay kulan way ka adkaatay marka kulankan saadaashiisa hadii aan isaguna aan ku darsado waxa isleeyahay Manchester United ugu dambeyntii xoogaa waa ay soo roonanaysaa isla markaana pressure-ka ayay ka dejin karayaan tababarhooda waxaan aaminsanahay marka United-ku in ay adkaan doonto isla markaana ay ka adkaanayso kooxda Chelsea gooli waxba ayaan isleeyahay ama waa aan ku saadaalinayaa kulankan adag ee Chelsea iyo soo kale kooxda kubadda cagta Manchester taxmaraya sababtuna waxay tahay United-ku cadaadis badan saaran si gaar ah tababar Amorim marka waxa leeyahay hadii xitaa kulankan uu guul dareystaa waxa macquul ah in 48 saac kadib kulankaas shaqada laga ciyaariyo marka tababaraha oo cadaadis uu saaran yahay ciyaartoyda oo laftigooda cadaadiska dhinacooda uu saaran yahay waxa aaminsanahay in Chelsea ay ka adkaan karaan gooli waxba Chelsea waxa leeyahay saaxiibada taageera iga raali ahaada laakiin Manchester United ayaa gooli waxba ku badinaysa kulan kale todobaadkan sida weyn isha lagu hayo waa Manchester City iyo Arsenal waa kulan kale weyn labadan kooxoodna waxay yihiin kooxo iyaguna ku xifaaltamay horyaalka Premier League haddaba Manchester City iyo Arsenal saan la socono todobaadyadii ugu dambeeyaba labada kooxoodba guulo ay ku soo gaareen Arsenal waxay ka soo adkaatay kooxdii Nottingham Forest ahayd halka Manchester City United ku 3 gool waxba kaga soo adkaatay runtii form fiican ku jiraan markii Champions League laga hadlana sidoo kale guulo isku mid ay soo gaareen oo midna waxba ay kooxihii hata Talyaaniga iyo Spanish ka socday kaga soo kala adkaadeen marka kulamadoodii ugu dambeeyay xiliyaareedkii horena 4 dhibcood laga qaatay kooxda kubadda cagta Manchester City sala socono saaxiibayaal Manchester City 5 gool iyo waxba kulankii ugu dambeeyay xiliyaareedkii 2024 waliba garoonka Emirates ayaa lagu xasuuqay marka waxa la isweydiinayaa mar kale City maxaa qabsan doona markay Emirates yimaadaan kulleyba labada kooxood xiliyaareedkii hore iyo xiliyaareedka sumid maaha Arsenal si weyn isku soo dhistay City sidoo kale waa is dhistay marka Pep Guardiola iyo ciyaartoydiisuna waxay dagaal adag u gali doonaan
sidii ay Arsenal dhibcaha ay uga soo qaadan lahaayeen. Arteta waxa uu doonayaa in foomka fiican uu ku bilowdo Premier League uu sii wado isla markaana ciyaartooydiisa kuul weyn ka gaaraan. Haddaba kulankan saadaasha aan ka bixinayo saaxiibayaal waxa uu yahay horta 5 gool iyo wax lamid ah kulankan ma la iska dhalin doono, laakiin shabaqa waa la wada gaarayaa. waxaan isleeyahay marka natiijada aan kulankan ku saadaalinayo ugu dambeyn Arsenal ayaa iyadu waxa 3-2 ay kaga adkaanaysaa kooxda kubadda cagta Manchester City. marka saas uu leeyahana labada kooxoodba weeriyaan fiican ay haystaan. Arsenal oo kala dhanka weerarka way ka xoogan tahay, qadka dhexe sidoo kale Manchester City sidoo kale way ka xoogan tahay. marka 5 gool la iska dhalinayo isleeyahay kulankan 5-2 ugu dambeyn 3-2 ugu dambeynna Manchester City ayaa looga adkaanaya oo guuldaradii saddexaad ayuu Pep Guardiola xiriiradkan isagu qaadan doona. saaxiibayaal muuqaalkii koobnaa intaas ku soo gabagabeynaya kulay saadaashu waxa ka saxma iyo wixii aan ka saxminba muuqaal xiga ayaan ka soo duubi doonaa. marka idinkuna saadaashin ka dhiibta kulamada big gameska ah ee todobaadkan laga ciyaarayo horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League. City vs Manchester United, Arsenal, Manchester United vs Chelsea, Liverpool iyo sidoo kale Everton yaa adkaan karaya. idinkuna saadaashiina qaybta saaxiibayaal igula wadaaga muuqaalka like saara sina share kareeya channelka haddii aad ku cusubtihiina nagu soo biira. ma santiin.